سيمينار بلارن oo looga hadlayay muhiimadda ay tiknoolajiyadda u leedahay dalka Soomaaliya isla markaasina ay ka soo qayb galeen arday fara badan oo ka kala socotay 5 jaamacadood oo ku yaala wadanka Malaysia ayaa waxa lagu qabtay jaamacadda Al-Madina International University ee ku taala Shialam gobolka Singapore ee wadanka Malaysia aqoon isweydaarsigan ayaa muhiimadiisu waxa ay sidii ardayda Soomaaliyeed tiknoolajiyadda ka barata Malaysia ay qayb libax leh uga qaadan lahayd isbeddelka dhanka horumarka ee haatan ka jira dalka Soomaaliya intii seminaarkan uu socday ayaa waxa ardayda ka soo qayb gashay hoosta ka wada xariiqeen in Soomaaliya haatan u baahan tahay tiknoolajiyadii wax walba oo qayb ka qaadan kara isbeddelka dhanka horumarka ee haatan ka jira dalka Soomaaliya iyagoona sidoo kale tilmaamay in dal waliba horumar ku tilaabsaday ay qayb ka tahay tiknoolajiyadda seminaarkan ayaa waxa uu ku soo beegmay xilli Soomaaliya ay ka jirto horumar weyn oo dhan waliba leh iyagoona ardayda halkaas ka soo qayb galay dhammaantood ballan qaadeen in dalka dib ugu laaban doonaan isla markaasina ay ka qayb qaadan doonaan horumarada jira ugu horeen waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha qabanqaabada seminaarkan Ibrahim Yar oo si kooban uga hadlay muhiimadda seminaarkooda iyadoona ay ku xigi doonaan qaar ka mid ah ardayda halkaas ku soo bandhiga casharada iyo dadweynihii kale ee ka soo qayb galay seminaarkan anigoo ah Ibrahim Xasan Xaaji waxna ka barta jaamacadda tan ee Al-Madina barnaamijka maanta aad buu maarkino u wacnaa wuxuuna noogu dhamaaday guul tiknoolajiyada ayuu ku saabsanaa in badan hadba waxaan isku day doonaa dadaalka inaan kordhin doono bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxaan ka soo qayb galay barnaamij aad u wanaagsan oo ay soo qaban qaabiyeen ardayda jaamacadda MIDU ama Al-Madina International University qaybta IT-da runtii barnaamij aad u fiican buu ahaa oo ardaydu isku dhaafsanayeen waxyaalaha ay soo barteen ama cilmigii intii ay jaamacadda dhiganayeen ay barteen ay isweydaarsanayeen isku soo duuba markii ugu horeysay oo seminaar noocan oo kala lagu qabto dalka Malaysia xilli aqoon-yahanadii dibadaha ku sugnaa ee dalka dib ugu laabanayaan Ahmed Abukar Ashari telefishinka caalamiga Somali Channel Malaysia